wafdi ka socday dowlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa degmada Boocame ee gobolka Sool ayaa waxay ka warbixiyeen waxyaabihii ugu qabsoomay halkaasi iyo waliba safarro kale oo ay ku tageen deegaano kale oo hoos yimaada deegaanka Boocame ee gobolka Sool. Mukhtaar Ciise Faarax Xamari, wasiirka macdanta iyo biyaha oo halkaasi ka hadlay, ayaa ugu horreyn waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ugu qabsoomay intii ay ku sugnaayeen deegaanka. haddii aan ka soo gudubnay meesha la yiraahdo maxaan ku rahdaay karin ururo wadal waxaanu nimi Boocame waanu in muddo joognay inta waxaan ku dhex jiray sidii aan u dhisi lahayn maamuladii deegaanka maamuladaas ka kooban toban awal qorshaha iyagu wuxuu ahaa laba guddi in la dhiso sidii madaxweynuhu lagula soo taliyay guddi amni iyo guddi deegaan. halkan markii aanu xaalado badan eegnay laba guddi waa isla barbar dhisi weynay annagoo eegnay arrimo fara badan. hal guddi ayaanu ka dhisnay degmada Boocame, hal guddi oo ah golaha deegaanka. guddigaas oo wax gogol xaari doona habkii looga gudbi lahaa gole deegaan oo iyagu ay yeeshaan degmada Boocame. waana lagu taageeray taageerooyin fara badan baa naga soo gaarayay dadka hambalyo naga gaarsiin bay lahaayeen dadku madaxda Khaatumo ilaa madaxweyne ilaa agaasimaye ilaa shaqaale ilaa odayaal. taasna waxaan jecelahay maamulka inuu gudoomo degmooyinkaas aan soo marinay oo dhan guddiga waa u dhisan yihiin deegaanka. guddi deegaan kaliya maaha, waa guddi deegaan iyo guddi amni. intaas marka hadda waxa noogu dhan qorshihii aan u soconay ee ahaa dhisidda golaha deegaanka iyo wacyigelintii dowlad goboleedka Khaatumo. wasiirka ayaa waxaan wax ka weydiiyay shirkadaha ajaaniba oo doonaya inay shidaal ka qodaan deegaanada Khaatumo State, isagoona sheegay inay taasin marnaba suura galaynin. arrintaas waa arrin waxba kama jiraan. dal macdantiisa waxa baaran kara oo qodan karana dowladda ka jirta markii ay heshiis ay cid la gasho. annagu dadka la leeyahay ama Norway ha noqoto ama Sweden ha noqoto ama Europe kale ha noqoto ama Afrikaan ba ha noqoto waxaanu ka ognahayna ma jirto wax ka suura galayaan ma ay jiraan. laano maamul aan meeshan ahayn khasabna ku haysta ayay waxa la galeen dhiilal sida anaga nagu soo gaarayso information. taasna mid aan ogolahay ma aha. dhulka annaga iskale annaga ku tushanay cidii interest ay ka qabto inay shidaal ama macdan ay ka qodo gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee dawlad baa ka dhisan. Sool iyo Sanaag iyo Cayn dawlad kale ayaan heshiis la galay marka anaa qodanayo dhulkii oo dawlad kale taasisay. taas micnaheedu waxa weeyaan waqtigii isticmaalka Ingiriisku dalka haystay Ingiriis baa dhulka siiyay oo isahay kadibna wixii macdan anaa xaq u leh waxba kama jiraan yaan lagu soo looguy. hadiiba ay dhacdo haltaa ka oo dhulka yaga oo shidaal baaris ama macdan baaris laga qodayo taas ninkii geystay oo ninkii ku yimid isaga ayaa mas'uuliyadeeda qaadaya. waxaanu leenahay shirkadahaasi ha ka laabtaan arrimaha gacanta kula jira. geesta kale waxaan wax ka weydiiyay wasiirka ciidamada maamulka Soomaaliland oo sameysanayo ilaalinta shirkadaha doonaya inay shidaalka ka qodaan qaybo kamid ah deegaanada Khaatumo State iyo waliba cawaaqib xumada ka dhalan karta amuurtaasi. waxa weeyaan cawaaqib xumo aad u baa ka dhalanaysa waayo maamulka Soomaaliland dhulka kan ma laha isagu Khaatumo iskale. horeyna waan u sheegay ilaa 2 jeer hore maamulka Soomaaliland la baxay anagu Soomaaliland wax shaqo aan isku leenahay ma jirto. wax naga dhaxeeyo oo heshiisiina ma jiraan. dhulka yaga waxay ku haystaan khasab. maadaama ay dhulka yaga khasab ku haystaan annagu waxaanu jecelayn si nabadgelyo inay iskaga baxaan. haddana waxaanu ku celinaynaa warbaahinteedan shirkado iyo waxaas aydan gelin bal horta idinku naftiina ka badbaadiye oo kala baxa idinku nabad qaba gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn. ciidamadan ay qorayaan ma aha ciidamada ay Khaatumo ka qortay, waa ciidamada Hargeysa kala yimaadeen Burco kala yimaadeen. taas cid uu nabad gelinayo ninka Hargeysa laga keenay Burco oo leeyahay amnigiisa simaya taas ayaga ka jawaabaya mas'uuliyadaasna mid aan anagu leenahay ma jirto.
wax magaranaysa ciidan dambe la keeni karaa ma ay jirto annaga ayaa nalagala xiriiri karaa. wafdiyo kala duwan oo isugu jiray wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Khaatume State ayaa waxa ay ku kala sugan yihiin qaybo badan oo kamid ah deegaanada Khaatume State kuwaasi oo ku howlan hirgelinta maamulka. Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish TV magaalada Boocame.